dal aan lacag lahayn dal maaha waa dal aan calan lahayn oo kala weyn ya dalka waxyaalaha lagu soo calanka maaha calanka iyo dalka la difaan gareeyay iyo waxa weeyaan iyo lacagtuna ku jirtaa lacag la'aan baan nahay waqti dheerna waan hayn sidaan u nahay lacag la'aanada waa iska garanaynaa oo dhibaatada weyn ee inagu dhacday iyo lacagtu maamul bay u baahan tahay maamulkiyo aftaraha faraha ka baxay hadday sidaan noqotana lacagta si loo soo celin lahaa ma fududa dalalkeenan Afrika oo dhan qoladii markaa haysatay ka baxaysay oo lacagta u samaysay oo dawladda waaweyn ahaa laakiin si dalkeena oo kale si dal halkeena oo kale ah oo intuu independent noqday oo hana qaaday haddana sideena ku dhacday ma badna ma jiro haduu jirana ma badno Zimbabwe baa wana Zimbabwe arrimo kale ayada hor yaala inaga dalkeena marka lacag male lacag in la sameeyana waa lagu qasban yahay waa sameeynayna lacag marka ka hadasho waxa loo baahan yahay dhaqaalihii inaad si fiican u taqaano lacagtu dhaqaalaha ka turjuntaa lacagtu inta ay noqonayso jajabkeedu wuxuu noqonayo sarifkeedu wuxuu noqonayo lacagaha dadka haysta si loogu bedelayo reserve-ka loo baahan yahay in lagu ilaaliyo ya waxa soo dhani wax yar ma waxaan khibrad u leenahayna ma aha ya waxa kale weheliya lacagta xataa soo iibsashada printkeeda ayaa malaayiin dollar dadku bixin 40-50 milyan oo dollar baa lagaga baahan yahay in lacag print karaysato waxa soo dhani wax fudud ma laakiin waxa ilaahay muxuu haynaa ku sahlay adduunyada diyaar bay u tahay gaar ahaan qolada lacagaha ku shaqale IMF ku in yar baan isku jiraa intaan qaraar wada gaadhno lacag Soomaaliyeed la soo print kareeyo si loo maamulo si loo habeyn lahaa baa laga hadlayaa conversion rate baa laga hadlayaa amount ka tahay baa laga hadlayaa dhaqaalaha in la isla soo laga hadlayaa wixii lagu ilaalin lahaa baa laga hadlayaa sidii xataa loo qaybin lahaa ayaa laga hadlayaa marka dhawaan hadii la yiraahdo waxaan doonaynaa inta sanadku dhamaan in shilin Soomaaliyeed anu waxaan doonayaa in shilinka laga bedelo magac kale loo bixiyo Soomaaliyeed geed hadii la doonayo la yiraahdo laakiin waxaan u maleynayaa imika siday tahay inaan u qaadan doono hadhow wixii kale inoo soo hadhow aan ka hadalno markaas shilin Soomaaliga halkaas u maraya